maalin baa rasuulku saxaabada isagoo dhex fadhiyo qoslay sida xadiidka fi saxiix muslim xadiid Anas ibn Malik wuu qoslay ilaa miciyihiisu iyo goosaha hore ay muuqdeen markaas saxaabadii wuxuu ku yiri ala tasaluni mimma adhak war miyaydan ani weydiinay waxaan ku qoslayo ma ay weydiisaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam markaas waxay yiraahdeen rasuulku isagoo aan markaa iyagu u jawaabin markaas waxay yiraahdeen mimma tudhik ya rasuul allah mimma tadhak ya rasuul allah maxaad ku qoslaysaa rasuulka ilaahay waxaan ku qoslayaa buu yiri adoonku inda adkaanta bini aadamka yani sidoo adoonku ilaahay aakhiro ula doodayo waan ku qoslayaa ilaahay cadaaladiisa qofkii baa la keenaya rabbigii baa la hor keenaya markaasuu hadlaya wuu sogay dambiilo weey macaasiye dambi galay markaasuu hadal soo jeedinaya dood buu furaya wuxuu oranayaa ilaahayow soo dulmi igama aadan badbaadin in lay dulmiyo soo adigu ma aadan diidin oo cidna anigu dulmi maayo soo ma oran ha anigu haddaba ilaahayo naftayda cid igu markhaati furta maanta ma ogoli aniga adoonkaagii baan waan ku hor taagnahay aniga warkayga cadaysanay malaa'ik ha ii maqlin cid kale ha ii maqlin naftayda aniga maanta ka warbixinaya ana naftayda kaliya wax iga weydiin malaa'igna cid ha iga weydiin cid kale igu markhaati furta ha ii weydiin waayahay buu Allah subhanahu afka laga xidhaya marka qam wala amsiina ila isaga ay naftayda iga warayso cid iga baxsan aniga cidna waxba iga weydiin afka laga xidhaya ilaahay baa marka wuxuu oranayaa xubnihiyo hadla haye gacmihiyo maxaad ogeydin indhihi afkiyo lugihiyo gacmihiyo hadla markaasay hadlayaan daldalmaya sida quraanka ilaahay kaga sheekay fi suurati yaasiin waxaasuu sameeyey waa run ilaahayo halkaasuu maray waxbuu xaday waa zinaystay been buu sheegay kanuu sameeyey waa arkaa isagu is eegaya marka saasuu leeyahay gacantiiba hadlays lugtiiba hadlays gacantii markaa afkii kama hadli karo isagaa isfiirinaya mar lugtana hadlays gacantu waa run bay leedahay tanna waa run isagii baa isku mashquulsan oo yaaban soo adigii hadlayba xubnihii baa hadlay gacantaas daldalmaysa markaasuu marba doo isfiirinaya oo mar ilaahay eegaya waa argagaxsan yahay waa yaaban yahay markuu dhammaado baa afka loo furaya marka waa la sii deynaya markaasuu canaan ula jeesanaya xubnihiisiyo fayalcanu arkaanah xubnihiisii buu nacdalaya caayaya habaaraya wajawaarixa iyo maxaan ku dhahay xubnihiisii suxqan lakunna facankunna kuntu unaadir fogaado inkaar idinku dhacday markaan sidaa lahaa oo malaa'ig iyo wax kale layga soo qoray aan meesha ka saarayay idinkaar idin difaacayay ma anigii baad igu markhaati furteen kaar idinku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala marka way jawaabayaanoo qaaluu antaqana allah alladii antaqa kulla shay iskama anan hadal ilaahay baa naga hadliyey waxaad ogeydeen sheegaa la yidhi waa hadallay